بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله إلهي baa mahad leh waxaan halkan ka salaamayaa shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka reer Galmudug meel walba joogan waxaan halkan doorashadii ka dhacday Juulaay 3keedii 2026 dowlad goboleedka Galmudug ee doorashadii isku sidkaneed ee natiijadeeda ay diiday maxkamadda sare ee dalka waxaan aqbalaynaa natiijadaas haddaan nahay maadaama xisbigii JSB uu aqbalay xisbiga wadajirka cadaaladda iyo guddiga doorashooyinka waxaan halkan ka cadeynaynaa doorashadaasi ay aqbalaadda maxkamadda iyo xukunka eerida aan aqbalnay in shacabka reer Galmudug si mug iyo miisaan leh ugu soo baxeen ay ahayd doorasho maaragtay aad iyo aad shacabka reer Galmudug meel kasta joogaan ay soo baxeen ayna muujiyeen rabitaanka in codkooda dastuuriga ay dhibtaan sidaas awgeed waxaan ka codsanayaa shacabka reer Galmudug ee codkoodana siiyay ee waqtiga duruufaha adag nagu siiyay inay nala aqbalaan natiijada iyo go'aanka maxkamadda shacabka reer Galmudug waxaan ka codsanaynaa sidii ballaarneed ee markii hore noogu soo baxdeen si ka muhiimsan oo ka awood badan inaad noogu soo baxdaan oo aad u dulqaadataan qorraxda iyo safafka waxaan codsanaynaa shacabka reer Galmudug dal iyo dibad meel ay joogaanba inayna taageeraan waxaan ballan qaadaynaa mar labaad ballanqaadkii aan shalay ballan qaadnay oo aan u ballan qaadnay shacabka reer Galmudug haddii codkoodana siiyaan inaan maaragtay aan ugu abaalgudi doono adeeg hufan iyo waxqabad la taaban karo oo taabanayo qoyska iyo qofka iyo bulshada reer Galmudug taabanaya waxaan u mahad celinayaa dhammaan dadka Soomaaliyeed oo ugu horeeyaan saxaafadda culimada ciidanka amniga ee dowlad goboleedka Galmudug madaxda amniga ee Galmudug iyo hay'adaha dowladda Galmudug gaar ahaan madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug sidii hufan ee doorashadaas uga shaqeeyeen inay si nabad ah Galmudug uga dhacdo waxaan rabnaa muwaadinka xaq waaye dastuuri ah in waxaan rabnaa doorashada hadda ku celiska ah ee si nabad ah oo hufan ee Galmudug ugu dhacdo oo qof walba isagoo xor iyo xalaal qofka uu rabo u doorto haddii la yiraahdo aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan leeyahay habeen wanaagsan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.